waxaa rabaa dad badan oo meesha wax ka qaldan yihiin. Car aniga iga dhaadhiciya car wadaniyaan ahay hebelkaana waxaan ku wataa ama qabiil ku wado ama ku wada ishag nin jeclaysi asiga taageer gooni ah u noqo. aniga ma iga dhaadhicinaysiin inaa wadani aatiin idinka. wadaniga waxaa loo yaqaanaa qofka madaxweynihii saaca soo koro madaxweynihiisa uu yahay. madaxweynihii saacaas oo soo koro inuu madaxweynihiisa uu yahay. kan shalay ka degane oo sharaf iyo ciise qof oo taageeri kartaa la iskuma diidno. laga yaabaa inaadan ka helin madaxweynahan ama madaxweynihii hore aadan ka helin, laakiin micnaheedu ma aha inaad maaragtay madaxweynihii tagay iyo ama midka hadda jooga mid aad intaad soo qabatid oo caysid. xas wadanimo ma qaanana. waxa qaanana nin jeclaysi iyo shakhsi jeclaysi ama qabyaalad ku raac ama shakhsi ahaan u jeclaaw. adeeryaalo sagaashanka waxaa arkayaa dad qabiil shalayna qabiil dhac ku dhahay maantana qabiil dhac ku dhahay. adeeryaalo lambar koow horto madaxweynihii tagay sharaf ciise xaqeen ka leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo maxaa la dhahaa ishak calafkiisa maysan noqon xilka inuu hal ku soo laabto. waxaa calfaday madaxweynaheena hadda hayay xilka oo kursiga nasiibsaday xasan sheekh maxamuud oo ilaahay u kasay. waxaa rabaa markii inaa idii sheego Soomaaliya mid idiga qaldan arba inaa idii sheego. ani iskigama leegama dhaadhicinayo nuucyadan hadda social media ka socdo dhan wadani wax la dhahaa ma jiro adeeryaalo. wadanima nuucaas lama dhaha dal jecel idiga ma ahan ee waxa idiga taa shakhsi jecel. xadi dhahay dad waxaan arkay qabiil ku sheegay hadda qabiil malo kursiga kore. adeeryaalo horta mid ay idii sheega madaxweynihii kursiga ka degay iyo midka hadda saaran markay wadan kale ay tagaan madaxweynaha qabiil hebel waa maalaha mase madaxweynaha Soomaaliya la dhaha ya madaxweynaha Soomaaliya ma la dhaha masana waxa la madaxweynaha oo heer hebel qabiil hebel ahay. idinka qabiil idin u yimaada Soomaaliya qabyaalad idin dilaysa afar la saac madaxda kala qabiileynaysiin. madaxweynihii hore wuxuu kursiga ugu fadhiyay Soomaali Maxamed dal iyo dibid kan joogo kursiga ugu fadhiyay kan hadda fadhiyana ay qabiilo ugu fadhiya Soomaali Maxamed oo ka kooban yahay dhammaan Soomaalida dhan u fadhiya xilkaas oo kursigaasna u doorteen. shalay maxamed cabdullaahi farmaajo Soomaali oo dhan wada dooratay ayadoo la wada faraxsan yahay loo ogol yahay oo la wada jecel yahay kursigaas oo fuulay. maanta qof shakhsi naceebkiisa ugu tagine nasiibka ka hiiliyo kursiga waa laga guuleystay. xasan sheekh maxamuudna hore xilku soo qabtay waa madaxweyne wadanka soo xukumay 4 sano haddana waa kana nasiibkiisa kursiga ugu soo laabtay. marka ana waxaan la yaabay 90ka dadka habaartamaayo qaylinaayo caytamaayo heer hebeleynayo. walaalayaalo maxaa idiga qaldan ilaahu wadankeena wadani u keen wadani dada meesha wadani war wadani nuucaas lama dhaha. wadani nuucaas lama dhaha. wadanimada soo barta horta wadanimo meesha kuma haysiini ya. 90kii madaxweynihii degay dada cayna madaxweynaha had saaran dada cayna qaldan. horta wallahi waad qaldan tihiin Soomaali Maxamedey. aniga ka farxiye ahaan inta xuna la hadlayaa oo qabyaalad ama shakhsi jecel ama laga sheego ama fuyus raadis hal qof inta iska soo qabsado qof kale ku diganay. waxa idin leeyahay madaxweynihii tagay maxamed cabdullaahi farmaajo xageena sharaf ciise ka leeyahay waa madaxweyniheenii woona soo xukumay waa aabihii dalka Soomaaliya ahaa maantane sharaf ciise xageena ka leeyahay. madaxweynaha maanta la doortay xasan sheekh maxamuud waa aabihii dalka Soomaaliya waa aabihii ummadda Soomaaliya waa hogaamiyaheeni waa madaxweynaheena sharaf ciise oo leeyahay. maanta labadooda madaxa ii saarihiin ani ahaanteyda. nin xilka soo qabtay mas ninka hadda saaran dhammaan koow ahaadaba ani xaggayga sharaf ciise ka leeyahay. Soomaalida marka meesha waxa la hadlayaa qaarka views raadisga views inta ka damay hal shakhsi inta soo qaato shakhsi kale ka daldalmaayo waa iswada yaqaanaan kuligooda dad magac leh ha noqdaan dad magac leh ha noqdaan
oo madaxdii kala caynaayo adeeryaalo waxaa idiin sheegayaa cay idiigama mudno hadda sharaf ma lihidiin shaqsi jeclaysi idiga batay iyo qabyaalad iyo qurun aa idiga buuxaan wadankiina wuxuu heer u gaareen 4 saac waa idinka laakiin dalka hore u soconaya cid idii joojinaysa dadka social media ku qafiifay oo waa waalan oo views ka dhumay waxaa idin leeyahay madaxdii tagtay iyo madaxda maanta madaxay inoo saaran yihiin lambarko waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dalka wax badan waa soo hogaamisay wax badan waa u qabatay xaggeena waxaad ka leedahay sharaf iyo ciise karaamo waxaan ku leeyahay meesha tagtid horay gadaal nabad allah kaaga dhigo haddaan nasiib u yeelatin kursigaas waa kusoo noqonee maxaan leeyahay mudanaheena madaxweyne hadda kursiga inoo fuulay xasan sheekh maxamuud mudan madaxweyne dalka iyo dadka iyo diintaba adiga maaragtay ii sheeg maanta kursigaas u fadhiso waxaa laga rabaa insha allah xilki ilaahay ku dhiibay waxaan ilaahay kaaga baryaynaa inuu ilaahay kula garab galo shaqa ku sugayso shaqadaasna waxaan ku leenahay ilaahay kula garab galo anagana garabkaagaan taagana ducaan ku garab taagana waa kugu duceyneynaa mudane madaxweyne dadkaagii wuu ku jecel yahay hawaanta wixii iska caysan oo luuqyada dhaadhac ka siiyay inta ku jecel oo maanta ku dooratay meeshaas tartankaas oo aad 3 wareeg aad ku guuleysatay dadkii ku doortay joogaan shacabkaaga ku jecel maangaabti iyo wixii iska hadlana ha u joojinin waxaan ku leenahay sharaf ciise xageen ka leedahay soo dhawo waan ku hambalyeynaya hambalyan ku dhahayaa kun iyo kow jeer hambalyo mudane madaxweyne marka waxaan idin leeyahay dadkiina Soomaaliyeed inta qof oo Soomaalinimada ku weyn tahay madaxweynihii hore tagayna waa dahab kan hadda joogana waa dahab kulligood anaga dahab ay noo yihiin kii xilka ku guuleysan waaye kii ku guuleystay kii kursiga ka degay kii fuulay dhammaan anaga sharaf iyo ciise xageen ka leeyihiin dadka marka waxaan leeyahay qabyaalada dileetoyow oo ku qafiifay shaqsi jeclaysi waxaa idin leeyahay 90 meelaha ku hahaynine dad waxaa arkayay oo caytamaayo ooynaayo habaartamaayo ooynaayo yaa habaaraysiin habaarkiina iyo xaq yaa yani idinka habaarkiina aqbalaayo habaar xaq ku guura sababta qofka nasiib u yeeshtay ilaah baa u qoray kursigiisa inuu ku fariisto maxay tahay habaarka kii tagay nasiibkiisa ku tagay maxay tahay habaarka wallaahi waa la yaabana habaarka waa kan baba war cid ad xaq u leedahay cid habaarkiina waxaa la u joojinaysa malahan shaqsi jeclaysi iyo qabyaalad idigooda urooyso waxaa idin leeyahay qabyaaladii idii qaaday iyo shaqsi jeclayski idii qaaday idiima dhigo hirrig ilaa aan qaro waa la yaabay wallahi waxaan kala yaabay adduunka ilaa meesha wax socdo waa la yaabay marka waxaa idin leeyahay Soomaali Maxamed dhamaan inta ku xiran YouTube channelkayga Farxii Soomaali official hadda aniga ma aragtay fikirkayga Soomaali jecel dad jecel dal jecel wadaninimo waxaan u aqaanaa midka tagay kii taageero dhaha mudane madaxweyne sharaf ciise ka leedahay xageena ilaaha ku aruuriyo xilka wax badan soo qabatay anagana maxaa la ii sheegay awaal waa kaaga haynaa inta dalka uu qabatay hore u soco kii yimaadana soo dhawow mudane madaxweyne dalka ku baahan dad diinta ku baahan dadka ku baahan kursiga lagu fadhiyo xilka lagu dhiibay xilkaas ilaahay kula garab galo duco hawaar mideeda kale cilmi qayb ma ka imaadeen biri wixii dhacay adii sheegay idinka adii soo waxyooday biri soo dhaxeys biri taaga dhaxeys yaa idii soo waxyooday yaa soo wax idii sheegtay idinka ma malaa'iga tihiin biri wixii dhacay cilmi qayb ma cilmi qayb ii sheeg subhanallah dambi weyn iska taraaraxayaan biri wixii dhici doona anaga ma ogin ilaah baa og subhanahu wa ta'ala cid soo waxyoonaysana ma jirto adoomana wadanahan oo waxba aan ahayn cid noo soo waxyoonaysana ma jirto halkaasay ku qoranta alsamaa wixii oo ilaahay ugu talagalay qof kasta uu maraa meel wadan kasta wadankaana meesha ilaahay ugu talagalo maraa si wixii u qorane cid bini aad shay karto malahan meel habeen mugdiya la galay subhanallah mugdi idinka ilaahay idii galay idinka jecel shakhsiyaadka oo mugdiyaan galnay dhahay subhanallah
shar lama shareystee afka ka daayo waxaan iga tagaa sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.